taliska qaybta 27aad ee ciidanka xooga dalka ayaa waxa ay ka hadleen geeridii ku timi saraakiil ka tirsanayd taliskaas oo ku geeriyootay qaybo ka tirsan oo gobolka Hiiraan waxaana ay ka tacsiyeeyeen geeridii ku timi gudoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas iyo xubno kale oo qayb ka ahaa taliskaas. warkan waxaa soo diray wariyahayaga Khalid Maxamed Ismaan Ilkacase. taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed General Ahmed Maxamed Alasow General Tradish oo maalmahan howlo nabadeed u joogay degmada Maxaas ee bariga gobolka Hiiraan isla markaana shir jaraad ku qabtay degmada Maxaas ayaa ka tacsiyeeyay dilkii shalay deegaano u dhaxeeya degmooyinka Maxaas iyo Matabaan ee gobolka Hiiraan loogu geysay gudoomiye xigeenka arrimaha bulshada degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan Faarax Nuur Guure iyo askar ka tirsaneed ciidamada qalabka sida oo ilaalo u ahaa isla markaana maanta lagu aasay qabuuraha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. taliyaha ayaa Xuseen gudoomiye xigeenku oo wada howlo nabadeed waxaana wax laga xumaado oo General Tradish oo ku tilmaamay falka lagu dilay gudoomiye xigeenka arrimaha bulshada degmada Matabaan iyo askartii la socotay asigoona uga tacsiyeeyay eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen iyo waliba maamulka degmada Matabaan iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed. waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa ciidamada qalabka sida ee askartii shalay islaax beenanaaskii iyagoo ku dhex jira ku dhintay iyo gudoomiye ku-xigeenkii degmada Matabaan oo muddo dhowr iyo 12 casho ku dhawaad soo waday hawshan oo halkaas ku dhintay iyagoo aslaaxaas iyo kala celinta labada beelood oo walaalaha ah ka shaqeynayay ku dhintay ajashooda ku gashay waa u tacsiyeynayaa islaaxay ku dhinteen cidna dhibaato hadda uma wadin iyagana ajiray heleen marka waxaan leeyahay marka insha Allah annaga dhana hadda islaaxaas ka wada shaqeynayno oo hawshan wada wadno inaan ku dhimanana diyaaraan u nahay islaax beenanaaskaas alxamdulillah marka waxaan leeyahay marka walaalahana waxaan leeyahay dagaalka joojiya walaalaha sharafta badan shacabkeen waa shacab aad u sharaf badan labada beeloodba shacabkooda waa shacab aad iyo aad u sharaf badan dawladnimada raba wanaaga raba islaamnimadu ay ka muuqato insha Allah xogaa shaydaan ayaa maxaan ku yiraahdaa dhex galay bal shaydaanka iska naara nabadda u soo jeesta iyana nabad qaadataan islaax beenanaas ku dhinteen laba beelood oo walaala dagaal ay ka dhex maray ayay maxaan ku yiraahdaa u dhaxeeyeen askari xanuunsan oo kalena waxay rabeen in beledweyne la geeyo iyadoo la soo qaadayo markaas aan jeclayn in nabadoonna halkaas laga soo qaado insha Allah maadaama horay baabuurkani uu keenay niman xildhibaana iyo nabadoonno xildhibaanadaas ay kamid yihiin xildhibaan duwane oo xildhibaan ka ah Hirshabeelle iyo taliyihii ciidanka booliska Hirshabeelle iyo xildhibaano kale ayuu waday awalba iyo gudoomiye ku-xigeenka Allah u naxariistaa dhintay wuxuuna ka qayb ahay maxaan ku yiraahdaa wuxuu ka qayb ahay aslaaxaas la wada raadinayay oo dadka wanaagsan oo saalixiinta oo wanaagsan oo nabadda iyo sharafta ka shaqeynaya ay raadinayeen ay qayb ka ahaa waxaan leeyahay marka waa rag shahiiday oo ku dhintay islaax beenanaas iyagoo raadinaya dadku waxay soo jeedinayaan cid qabiil ayaa dilay misaal shabaab ayaa dilay sharaxaad kooban naga sii maya al-shabaab ma dilin waxay kala dhex galeen laba beelood oo dagaalamaya islaaxaasina ku dhex jireen islaaxiyana ku dhinteen qabiilaadkii dagaalamaya beelihii dagaalamaya mid kamid ah dilay sidoo kale taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed General Tradish ayaa ka hadlay halka ay marayaan howlihii nabadeed ee maalmihii ugu dambeeyay oo ka wada deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan kuwaas oo ku dhexdhexaadinayay laba beelood oo walaalaha maalmihii ugu dambeeyay xiisadda colaadada ay ka taagneed deegaano hoostaga degmada Maxaas waxaana waxgaradka labada dhinac ee dagaalamay ugu baaqay inay joojiyaan xabadda isla markaana wax walba oo dhacay lagu dhameeyo wada hadal iyo gogol nabadeed wax fiican waay waa wax wixii shalay dhacay wax kaba u dhacay haddana waxa socdaahi waa wax wanaagsan oo dadka islaamka ah meel fiican ay u maraysaa insha Allah waxaana rajeynaa labada beeloodba gaar ahaan hadda beesha dhankan kale ah oo maxaan ku yiraahdaa beesha cali madaxweyne oo kale hadda hawsheedu waa fiican tahay tan kalena hawshoodu waa fiican tahay insha Allah mar dhow inay soo dhawaadaan ayaan rajeynaynaa insha Allah
khayr badanna waa rajaynaynaa ilaahay baa khayr laga baryaa weli waa ku kala dhex jiraan ciidamada qalabka sidoo dhan ku dhex jira ragga hadda shalay ku dhintay meesha asluuba kamid ah waxa kamid ah nin boolisa waxa kamid ah militariga dhamaantoodna waxay qayb ka ahaayeen islaaxana mar walbaba waa lagu dhimanaa waana lagu dhaawacmaa annaguna waxaan u dul qaadanaynaa dhibaato walba oo maxaan ku raahdaa naga soo gaarta dadka ehelka cid walba oo maxaan ku raahdaa meeshaasi dhibaatada ka jirta qayb ka ah si cadaalad ah oo ugu shaqeynaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida guud ahaan iyo dawladda federaalka ah maanta u kacday inay dadkan ay walaaleyso oo colaadda la joojiyo dawladda federaalka qayb weyn oo nabad ay ku baaqday ugu horeeyo madaxweynaha qaranka ugu horeeyo taasaana maxaan ku raahdaa aan ku wada shaqeynaynaa ilaahayna inuu taas maaragtay oo noo hirgeliyaan rajaynayna dadka walaalahana waxaan leenahay kuwa xagga iyo intaba isku haystaa inay iscafiyaan ay xabadda joojiyaan Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga Soomaaliyeed degmada Maxaas bariga gobolka Hiiraan